mas-uuliyiinta guddida diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee dalku waxa ay maanta boorama ka fuliyeen shuruud ka mid ahayd shuruudihii loogu talagalay inay ururada siyaasadda ee isdiiwaangelinaya buuxiyaana taasi oo ahayd in urur walba uu keeno 1,000 qof oo taageerayaashiisa ah kuwaasi oo lagu samaynayo tirin madax taabasha ammaanka ayaa ahaa mid aad loo adkeeyey waxaana gudaha magaalada boorama ku sugnaa mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa ee urur siyaasadeedadaasi 15 ah ee hana qaaday guddoomiyaha guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda cabdirasaaq cali ciyaale oo hawsha markii ay soo gabagabeeyeen shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu tilmaamay wixii ay qabteen waxa aanu halkan ku sheegaynaa gobolka awdal boorame inay maanta si fiican uga dhammaatay marxaladii aanu u soconay nabadgelyadana ay u socotay beri gobollada haray waxaanu leenahay boorame ku dayda sida nabadgelyada ah ee u dhacdayna ku dayda ururadana waxaanu leenahay dadkiina habeeya oo boqol qof 10 saf oo min 100 ka dhiga maayarka magaalada boorama cabdiraxmaan shidabile ayaa isaguna dhankiisa ka soo dhaweeyey sida nabadgelyada ah ee ay hawshani u qabsoontay si kastaba ha ahaatee waxaan meesha ka maqnayn in qaabka ay hawsha madaxtirinta ah guddidan diiwaangelinta ururada siyaasaddu u gudagaleen gudaha magaalada boorama maanta inay habacsanaan badani ka muuqatay waxaana guddoomiyaha diiwaangelinta ururada siyaasadda cabdirasaaq cali ciyaale oo ka gaabsaday inuu arrimahaasi faahfaahin ka bixiyo uu hadalkii ku soo koobay iskaanu isticmaalayna ee aanu ku tirinaynaa waa sirtii ku dugnayd Coca-Cola sidaan anagu u tirinaynaa u sugaynaa eenu u sugaynaa madax kataabad iyo indha kataabad iyo uulku tiris intaba anagu wixii aanu u qorshaysanay ayaanu ku sugnay عبد الله علي يوسف هون كيبل تي في مقالة بورما.